بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا زينب متان شانيل هكا نغا داونيس وزينب متان شانيل ميل walba joogtaan waxaan ku leeyahay farxad iyo bashbash iyo barwaaqo ku noolaada. maanta waxaan isoo tabinayaa ila tali iyo qisooyinka ku soo maray kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe wax walba ku soo maray ka horta wax ku soo maray kameero iska dhaaf balse qisooyinku way wanaagsan yihiin macalla wax ka faa'iide waxba qof kale ku soo dhacay lagu sheegaa waa faa'iide macalla walba waxba kororsan way iska wanaagsan tahay qisooyinka in la sheekeeyo balse maanta waxaan noo wadaa qiso hooyo ku dhacday hooyo Soomaaliyeed hooyo sharaf hooyo qaal hooyo walba ku imaatay maanta inta waxaan uga mahadcelinayaa hooyooyinka Soomaalida meel walba joogan hooyo yaalo waa in salaama meel walba joogta hata aniga ku darbaan hooyo baanahay waa salaama hooyooyinka salaan sharaf aan ku dhahay halkaas uga taagay marka hooyada Soomaaliyeed wixii ila soo qaybsatay wax yar oo markaasna oo si ma soo dhaxmartay ayada iyo maxaan ku dhahay maaragtay dadka ay la nooleed macna Soomaalida ay la nooleed ama Soomaali ama dariska ama qaraabada wax walba adiga galaadashay bas waxaan ka soo qaadanay aniga waxaan ku soo tashanay inaan soo barnaamij ku soo daro hal yar oo aniga markaas aan ka dhex fahmay oo ayada naftirkeedba ku soo celisay taas oo kale maar inaan ka hadlo ka wacyi geliyo dadka ama oga maaragtay u soo bandhigo sidan bay u dhacaysaa marka dhageys walaal kooban ka codsanayaa hadana daabta inaad subscribe noo saartid like iyo share bana inuu dhahdid videoga haduu ku soo gaarana maaragtay si share galaysid oo walaalahaada kale u si share galaysid hadaa share galaysana waa ku maasanta hadaa daabatana waa ku maasanta like hadaa saartana waad ku maasanta dhamaantiin jazakallahu khayr marka waxaan leeyahay meel walba joogtaan wayna salaamayna hadda ku soo dhawaada barnaamijka soo ugu dhaxaya hooyadaas waxay dhaaday anoo jiro dhowr iyo 14 jir meelaha 13 jir 14 jir adiga anoo jiro waxaan isku arkay inaan macnaha aan leeyahay power aan leeyahay oo brud baan leeyahay oo waxa ahay fariidad ma sha Allah tabarakallah ma sha Allah anigana waa u dhahay adigana u dhamaan insha Allah marka waxa ay dhaaday oo gabar yaro ma sha Allah oo fircoon wax walba ma taqaanaa sida waad kaysatay marka labaadna waxay dhaxday intaas markaan isku arkay maxayna nasiib xumo oo hooyaday Allah u naxariisto leena midaas ayaan ka xumaada Ilaahay u naxariisto dhib ma lahan qof walba dhimana qof walbana ajeesiisa maanta iga shaq wax reebaya mal Allah u naxariisto marka hooyaday dhimatay waan ka xumaaday xidid hooyaday dhimatay waa naxay marka dambana xaan dhahay Allah u naxariisto alxamdulillah wax walba Ilaahay keeno wali u shukriya wali kul shukr waay لما لا عدادي والي وضي ما دام هو ذي لمتي أنا هالكي وان كتجني وحن آدني استلان وحيد هذا حبريرتي هذه حبرير كراد هو ذي دبارتي حيد ولا عليه المكاس سكويس أبي ما بيجرين بو لا المكيس كل هو سكو أبي وحاسل الجرين وحنا مو بنود بين المكاس سومالي اسكت دجنين واجي برسمات كأهل حيد هذه dadkii wax malsiiyay qaar wax way haysteen qaar wax malsiiyaysan waa la soo waday gobolkii aan joogo gobol kala li keenay maamadii oo habaryar koraad iyo habaryar oo hooyadeed macaan la tamaanaya la joogay markii waxay dhaaday maamadaas waxaan ka helay dadee kal iyo laba soo dhaweysay ilmaheeda kale iga jecleed balse laakiin wax leen tobanayo oo dhanka waalidka oo aabahay uu noolay laakiin islaantaas markuu igu soo raaciyay reer kale iska yeeshtay ma bisoo daba raacanin bay dhahay markaas maamadaas wuu aaminay si maaragtay Ilaahay maxaan u maaragtay si fiican maaragtay igu maadar Ilaahay igu aaminay laakiin tameel iska wacay ma jirin warqadu soo qori jiray iga waran gabadhayda sayta waraaqa u qori jirtay oo celin jirtay aan sidaas lagu jiray mogtaan على تحاب حيل دمامدي وحي أركتينا أنا باور ليه هاي تقبلها دي مسيرة يعني هرتكو وحابس كأركبه مسير قبلها دي مسيرة يعني دكسي هدا أدوالي مسيرة سكول كهدا أدوالي مسيرة ميلو بهدا قبر والبحر السلام عليكم دا أصلا ما أنت لو دي مسيرة هذا أنا حيقول فرمينا دو حوجا مار شوجا أم شوجا محاولة حوجا مارتاي ستريس أم وسوس أيقول فرمينا هذا oo sabab
adiga meel walba istaagto sababta lagu ataagayo maxaa waaye macnaha qof walba oo salaanto sababtu adiga maaragtay sanka kugu taagay ama ku haruufay maxay tahay waxay dhad waxooga isla hadlay haddana maamadii oo imaaday marka xidid maamadaas waxay eeday dhad maama oo waxay dhaaday abwaanada ahayd waxay dhaaday maamada marka wuxuu u sheegay xaan dhahay haye ma anoo mulugsana ay subaxii imaatay aan quraacdi cuneyn hooy canjeerina cunti hooy ay dhahdaa way dhaaday maamadaas maama hadda kala iloobaay ma aan way waayo lowday haddana waa xasuustaa dhad waa mar walba waa u tagaa waa marka sasay dhaaday mogtaan ما شاء الله على ما مداس إلى عمر جيتها ودارية waxay rabtana allaha siiyo leenahay si wanaagsan soo korsi waxa fiican qofka markii lagu aamino oo caruur ay tahay gabar haday tahay wiil yahay si nidaam leh ama maarta xishmad iyo karaamo leh oo soo baxdo amaanadaas lagu dhiibtay marka waxay dhahday waa u sheegay dhahday maxaa dhahay dugsiga taad waa gabdhaha waa iga miseeraana sanka ii hurufaana iskoolka haba sheeginba naagta caanaha soo qaaday dhahdo ama ka unta gabdhaha sanka ii tahay hatta ayada naftirkeeda saas ii fiirisa sas bay dhahdaa marka ma aqaan waxa ka galabsaday aan waan wareersanay hawri macaanay maxaa sameeyaa kasay intay qososhay dag dhaaday intaas kili xleemiyaa dhaaday maxaa sameeyaa maxaa intaas wax ka weyn ma jira dhibaato ka weyn ma jira markaas waxay igu dhahday intaas leemiyaha intaas kili xleemiyaha hal mid sameeyay igu dhahday sanka malugu harif hatta gabdhayga sanka kuma harifeen hadaneenina hore u socay dhahday saale u fiiri ka tilaabso ka sii socodka dantaada la ku muuqnaato ra'yigaada ra'yi kala ku saarnay dhahday macnaha hadalkaada hadal dad ku shakshay haba qaadan ki ka adig leedo la soco macnaha wixii dadka dhageyso hada qodbato haday maartay cimli akorsanayso dhageyso waxa markaas ku adiga ka qaldan iska sii sax laakiin waxa kale oo sheeg waa la yiri waa la dhahay dhageyso waxa ku quman ka qaado waxa kale iska dhaaf naaga oo waxay dhaaday suuqa aqlo kulmay sanka day ku harufaa adbuu kuli yaala sanka u dibagadi maxaa dhacay wareer ma jiray dhaana intaas le meesha ay la fadhidaayo dugsigu aadayna maanta soco hore u soco xalaas la idhaahdo marka aan masii fahmin hadda waxa dhacay sanka ii gadiye waa u gadinaa indhaha saas ii gudgudiyay waa u gadinaa afka taagay waan taagaa dadkii ma iga harayaan maanta dama kale arka war layla sheega waa iska dhaafay waan weynaaday reer baan yeeshtay waxay dhahday alxamdulillah maamada reer baan yeeshtay oo dhinac baan ka degay aan ka dega ma ahnaha naag walba oo guriga aan daris la ay sanka ii taagay masirka adduunkan oo kala dhacay dhahday waa yaabay dhahday xooloodi ma haysti daris la isla nahay isma garanaynin hadda la isbaranay gobolka la isku baranay markaas aan soo degnay laba qof oo maaragtay isla qabo manahin sababtay hadana sanka iigu sii taagay la yaab dan maamadii ku soo noqdo anoo weyn waxay dhahday ilma dhalay oo habreeray brigis anoo yarsaasay dhaysay maxaa jira hadda waxay dhahday waa weynaata reerayalata ana ku sheega dhibaatada jirto waxay dhahday qofkii xisay ku dhahday iyada waa qofkii oo markaas hadalkaada haayo mar walba heblaay saasay kule un libleeyo qofkaas waa qof aad ka aqli badan tahay adiga mar walba hadalkaada u haaya mar walba waxa adiga sameeyso sameeyna waa ka maseera qofkaas waxa ku jira ay dhaaday waa marna waa ku nacibiyo naceeb ma aan xaasidnima naceeb jacayl ku nacibayaa oo ku jeceliyo waxa aad mar walba daba ordaa iraadkaadu maanta tiriyaa qofkaas oo naceeb jacayl uu ku maanta duu ku arki waayo ku hayna macna maanta wuxuu ku leeyahay maxay ku dhaysaa ama hadeen inta ay daynaagtay waxay ku dhaysaa laamiya taasa ahmata meelay taagneed inta meereysay iska dhaysaa ma aha naceeb balse way ka miseeraysaa jacayl miseerayaa kale jacayl xaasidnimo ma aha mid waatidaas oo dhan dumarkaas mid noocaas waa mid kale waa xaasidnimo oo wax lagu direyno ma ku arki karto adoono oo bilan oo maasha Allah oo dhacdhaca hada ma saliida iska marto xijaabka iska soo xirato biladka iska marayso ayay ka dhimasho ay tahay
ma dhimato maxay dhararaysaa dhimashadaada ayay dhararaysaa mid waa midaas midda saddexaad ku soo hartay midda saddexaad waa midda ku fiirinayso oo yaaban waxay ku yaaban tahay qofkan dadka aadaynin oo la hadlaynin oo salaanta salaamay haddana dantiisa wax walba oo lagu sheegana indhaha ka dadanaya ka sii socdo waxay ka yaaban tahay dulqaad badanaa afkeeda iyo gacanteeda isku dhageen dulqaad badanaa afkeesa kugu soo taagay ayuun bay kugu dishay midaas midda afaraada imaado waa midaan sankani kuwa haruufin oo xogaa laakiin kaa yar masiirto oo mar walba ku dhahdo maasha allah waxaan sameeyay waan ku faraxsanay maasha allah waxoogaa masiirno ku jira taas way ka masiirsan tahay bas wax kale ma kugu haaso marka qof waxaa tahay power leh oo awood leh oo ilaahay maaragtay siiyay awoodi firfircooni iyo power oo markaas beledkiisa ku kala maro wuxuu xun waxasan oo ku kala garanaaye hadda laga masiiro qaarna way ku jecelin qaarna noocay u kala baxeen oo ku sheega dumarkee hore u soco waxba maaragtay hasameeyna digaala sameeyna buuqa sameeyna sidaadaas ku soco waxaan ku leeyahay fariidad baa tahay gabar aqli badan baa tahay maasha allah baa tahay hooyo wanaagsanaa tahay hooyadii saas ay soo dhaatay aniga waxay dhaaday okay talooyinkii isiisay ama inta ii kala tirsay ayaa markiiba saameyn waxay igu yeeshteen okay tijaabaan ka qaadaya mar qof afartii saddexdii ii kala sheegtay dumar siday u kala baxaan ayaan qeybalaan bilaabay marka inaan waxay dhaaday tijaabo ka qaado أنا قلت له السلام عليكم أباي في عند الهراء السلام عليكم ليه دايسن كمركليسي تا وف ومودا هذا أنا جوب حب وصعب حيل هذا عيل بقى بيقطع من محسن كي يجوهر فان اللي وإحنا كمدي البارنا كم دا قندنا كمدي لنا أنا هاي مقطع هذا مركا حيل أحداي وحسم إيه هذا ما عرفت السلام عليكم قبضنا ما إلا أنتي ما عرفت سنك إيد تاعي مال قليبة أنتم من أي ما هذا مسجو واحد على سمين سنة قلت السلام عليكم مسجو وحاسك قاتين أنا مسجو مجيدنا تطلع كي وحسمين ربا بل كي إنعد يكي إجعل يكي جمسيراي يا في رهلا تجاوي عند قاضي يا دان وأنت جدان السلام عليكم صحابي سيتي في عنتي ناداي وعليكم السلام قارن مبلي لهذا قارن وعليكم السلام ضعيف علي ده قارن مبلي لهذا اوكي حدا هذا مسجل تمنيسين أنا لسه ديجنا فيلك أنا كنا دنا عنك جلايا إسلا تمن مركو حدا حياة ده هالمويو وحافظ لنا كده حياة درس كده متولد ديجنا درس كده ما درس الود ديجا ممتع قبل الود ديجا ممتع تولد ديجنا مركز حافظ ده عند ديجنا هاي دنك سيد ديجنا حافظه إن كميدا يا إسلا سمستين هل وحلقتهم تو وين مويا أنا مسجد ومجيد لكن أيه درين كودا فيرنا أوكي صادق ميد واحد ده أوكي إسك صادق ميد واحد ده محنك سودوني من واحد ده مهران بقى مسجد من الجرتين ميد واحد ده من واحد ده أبي جود ما إسك دارتينو مسجد وين لا تومنا إنسان مسجد محاو وحويني وأصلته ما إذا قيب تاين وين لا تومنا إنسان أنا قيب تدا تومنا حاول حوين فق على حناقة قار way xanaaqeen waaba kama go'aankii xanaaqa wajigooda ku yaal bismillah beerman ka daaqaadaheen qaarna waxoogaa waa arkaya inay isu suureynayaan laakiin isdejinayaan waxoogaa dejisay leeyihin midna mooyihii dhan ay afka ka xirtayba dhac warbaa ka dhacayba mooyihii lagu tuminayay misigada way ku goosayba xidhig maanta waxay dhahday istallaabaa la saaraa mooyaha moo lagu tumanayo wax gabadhana baaba arigeeda soo nacay bay dhahday maanta inala soo degtay baa iska dhaxarkee dhahday waaba iska dhaxarkee maba jecliyay dhahday hataa arigeeda hataa ina arko arigeeda iyo muuqeedaba ha laga qoriyo haddii kale halkaasaan ku cunaya waa dilaya bismillaahi raxmaan raxiim midii ay ii sheegaysa islaantii xaasidadii way soo baxday moogtahay mid kale soo booday mid kale maxay dhahday maxaa u dilayba adooba dilin ayaa afka ku dili kartaa ay dhahday waa mid kale oo iyadana igama seerayso oo laakiin xoogaa kasto naxariis ku jirto okay tuna waxay dhahday kubi oo idhaysay way ku jecel yihiin wax walba ka maseeraan jecel ay ku qabaan waaye way soo bixi doonaa iyagana waxay sameeyeen kubi kala saareen oo adigana waxay dhahday geedkii ku gooso darta gabadhan nacbantay tii kalena kula raacsan tahay ku kala xiisoo dheer marka waxaas u jiro
dad walaal baa leeyahay daris baana gabadha mar dhow soo degtay ina saan u dhibtaan ma ahan ilaahay ka cabsida ka fura xirgahan waa isla tumanayna qofkii masiirsan ama qofkii markaa dhibaato wadana intuu ka baxaya waa qofkii iga masiirsanay laakiin jacayl masiiri qabay ee dhahday dhab okay way soo baxday marka qofka iska ilaali lii dhahay ama markaasna lii kala tusay xaasidka isla marka xaasidka waa soo baxay dhab waa qofka markaba intuu soo booday albaabada dhacdhac isku siiyay moogtahay okay ilgaara iskaaga fiiriyay naagta waa xaasidad aday iska ka dhex aragtay ila waaba sheegatay way qaratay moogtahay aniga waxaan dhahday waa mahadsantihiin jazakallah khayr aniga maanta uma soconin inaan oo masigatunto balse waxaa u socday tijaaba aniga qaaday waana ku mahadsantihiin sidaan ni kala bartay ila horaanba nima kala baranaynin waa ni dhaafi jiray moogtahay marka xaaladda dadow barasho geelna rarasho waa intaas maamaadaas u raaciyay dadka waa inaa baratid geelkana waa inaa raratid waa intaas moogtahay geelka in la rarto waa oo la dhaqaalaysto dadkana adoo baranin wax mashka sheegi kartid moogtahay dadow barasho le geelna rarasho marka waxaan dhahaynaa sidaas maamaadaas u raaciyay marka waxaan dhahaynaa waa mahadsantihiin inta i jecel iyo inta nacbano waa arkay inta iga maseerto oo maseerkood xadaaf waa arkay inta maseer jecel ay qaba iga maseerayana waa arkay waad ku mahadsantihiin sidaas iyo nabadgelyo ayaan dhahaynaa maalinta wixii ka dambeeyay noloshaydu waa sii bedelaa gurigayga ma dhaafi qofku ma xadgudbi sidaydaa sii wata idhahda gurigayga iska fadhiyaa wax walba oon jecelahay anaaba samaystaa idhahda wax dad ii sameeyma wadhiib wax walba hadda u baada magaaladeydaan tagaa ama waxay dhahday waxaan wacdaa dad aan sii gagaranayo beri aan isgaran jirnay aan wacdaa waxaan u baahanya aan garanayn waa weydiistaa waa la isoo sheegaa kadibna sidii aba marka dambena waa soo dhoofo waxay dhahday wadamadan aan soo galee waxay dhahday beledkayga maaragtay America meelaha ma imaan laakiin wadamada carabta dhinac soo gashay kadibna waxay dhahday dadka caddaaya la sii qabsaday dadii wixii oo iska dhaafay balse waxay dhahday Soomaalida qaar noocaas ay ku dhaqmayaan marka waxay dhahday gabdhaha yar hadda soo kaceen oo waxay dhahday maaragtay power kale waxaan kula talinayaa inay ka fiirsadaan marka saa loogu shumugsan yahay oo lagu maseerayo oo meel walba laga taga oo xuuxda lagu hayo oo madalkeeda laayo la cunayo oo sinka laga taagay dariska dhan oo sinka wala taagayo waxay leedahay qofkaas waa qof maskax leh qof maasha Allah ah marka hore u sii socdo yus leading ya marka anigana waxa leeyahay maasha Allah fikrada soo bal dhacayba ya qof walba waxa laga yaabaa maanta arintan aan sheegay inay ku soo martayba ama aragtay ama hadda ku jirto oo qof adiga ku sameynay dariskeeda ama agtaada ay ka dhalanayso marka waxa leeyahay maasha Allah habareer hore u soco noolaa inta jirto in kale Allah kuugu diro maama quruxda badan oo sharafta leh ciisada leh oo karaamada leh oo soo ku soo barbaarsana maskaxdaasna ku siisana waxa leeyahay maama macaan ku salaamayna qisadeena maanta intaas ay noo eg tahay hadaa ka faa'iiday tan macnaha like noo saar subscribe noo saar maamada subscribe ay noo tahay hadda marka soo galo way daawaneen waa kaas maama macaan ku salaam way daawanaysaa waa kaas daqsi way soo gudbiyay adaan qalda waa soo sheegi kartaa luuqeeni waa noo soo sheegay insha Allah marka waxaan leenahay dadka xaasidka ah in xaasidnimada qof aad garanaynin oo hadda lay baratay in iska ataagto macnaha iska xaasid leh ma baahanba hadda la aragtay oo xaasidee qofku waa inaa baratid waa inaa la dhaqantid kadib haddaa aragtid qofkan inuu qof wanaagsan yahay oo maasha Allah meel walba ka wanaagsan yahay la soco haddii aragtid qofkan boqolkiiba 25 10 qofkaas sidaas aan sii ahayn ka soco ee danaada ka raaciyo ku saameynin laakiin qof iska wanaagsan oo maasha Allah haddaad aragtid iska taagaysa hiblaayo waa saas hiblaayo waa kan warle telefoon la ku jirta maxaa wareeka ku galay adigii ilaahay ku abuuray oo ifka ku keenay wuxuu ku keenay inaad asiga maaragtay ajirkaada iyo shaqaysato maaragtay waxa koontadaada adduun iyo tan aakhira inay wax kuugu aruuraan tan adduunna waa waxba ku aruursato waa intifaacsanaysaa waa cunaysaa tan aakhirana bari ku anfacaysaa marka qabriga lagu galiyo adoo kaliya oo marada cad ugu duduubay yay ku anfacaysaa waxa shaqaysata waa maxana hadiiba oo dadkeeda heblaaya intay maraysi intay taagni intay kan waxa sameynaysa heblaaya la digaashay heblaaya kala la digaashay tara la digaashay dhiig isla dhac
waxaas badaa sameyn maanta dhanna telefoonka intaad gasho war le aad daldalen oo gurigaada iska joogto haddaa hooyo tahana maarad xaaladaada kale iska qabsato haddaa gabar tahayna maxaa la dhihi jira hooyadaada ka duceysato hooyadaada maanta lagu mashquulba hooyadaada ka dhigato telefoonka aad daaranayso hooyadaada ka dhigo ka duceysa hooyadaada lugaha tutuuji u dhaqdhaq maara wax walba u samee sidii caruurta camal oo la dhaqan ducadeeda waa helaysaa wax ku dhibaayana male hooyo maalintii kuu duceyso waa maalinta albaabada dhan lagu furfuraayo wax walba ku dhaqaaqaayo marka tan gabar waxaa leeyahay iska ordo maanta dhan war dhuuqayso naaway fadhiyo hooyadaada maaragta hooyadaada wadane hooyadaada ka warhaay maanta hooyadaada lagaa gursumo is arkaysiin taadaa ku mashquulay adaaba hooyo noqonayso ma inta hooyadaada goori tahay hadda ay ku istaagan tahay ama xabaasha lagaa gelin ka duceyso tid hooyo oo reer leh oo ilmo dhishana oo war u taagan waxaa leeyahay walaal macaani warka waa lagu dhaamnaayo dantaada iyo maaragtay waxaa la dhihi jira caruurtaada u dane intaa war hayso ya mar wal taagan tahay ama telefoon dhigta ku haysato ama banaanada oo socoto wax soo sheegaysa ama meel heblay fadhido reerkaada wax ka dhaca dilu dhaqo waraado boodka allooy baaye maxaa xalge gabadhi u tagta habaare xaleeda habaar qabtadaas maanta haddaa u tagin allah dhulka la gooye habaarka dhan waxa ku daldalay habaarka adaa qabtaa maxaa ku geeye yid ma ku wacatay telefoonta ku gasho ma ku soo wacatay gurigeyga imaam ma ku dhahdo adi maxaa ka doonta mar telefoonta wacda baayseeta ma fiicanta caafimaadkaada ka waran okay garaad waaba ka tegeyba xaaladeeda waa ogaatay waxay waa ogaatay maalin waxaa arkaysaa adoo iskula kulmayseen xaaladda horena sii weyso telefoonka wac wax walba maanta telefoon ayaa fududeeyay maxaa ku waale marka adig maxaa ku wala jiibo haddii xaalad emergency oo degdeg ama dhimasho ama geeri ama maxaa la jiray oo maaragtay wax kale hadday jiraan waa orday gaarigaada qaado orod soo booqo qofkii wax badan xaale martida guriga 3 beri leeyahay haddii caadi marti caadi ay tahay tii kalena 10 daqiiqad ha ka badnaaninba qofka la joogayso ha ku sii dheereen maxaa 10 daqiiqad ka badan ha la joogin qofka hadday markaas familkaada oo caadiga hooyadaada aabaay walaashaada ay ahayn hatta walaashaada gurigeeda ka badan 20 daqiiqad ha joogo maxaa ku joojo guri nin leeyahay waa guri dad leeyahay walaashaada lay beri laakiin waa laga leeyahay maxaa ku sii dhex joojinaa marka taas ee tala iga ah oo barnaamijkeena ila tali walaal iyo qisadeeni maanta taxanaha inoo noqonaysay iyo waxaan leeyahay maalin wacno wanaagsan waxay ku tahay wacno wanaagsan galab wanaagsan duhur wanaagsan meel walba joogta waxaan leeyahay waxay ku tahay wacno wanaagsan say u daawanayso hadda xanuun igu daawanayso Allah ku caafiyo hadda igu daawanayso maxaa la jiray fiyowidaada Allah ku sii dheereeyo ama cimrigaada Allah ku dheereeyo fiyowidaadana Allah ku dhaafo caafimaadkaada Allah ku dhaafaan ka badaay hadda igu daawanayso taagni waxaan ku leeyahay meesha igu daawanayso ku wacnaato hadda fadhi igu daawanaysana fadhigaada caafimaad Allah ku daro wax walba igu daawanayso xaalay bashbash iyo barwaaqo caafimaad cimri dheer ayaan rajaynayaa meel walba joogtaan waa walaashin Zeyna Mataan channel oo inile dunida daafaheeda meel walba oo inta maqalkayga muuqayga taqaano waa salaama calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaan qisadan oo kale isku kulmayna waxaan leeyahay si shargalay barnaamij taxanuun noqon doona oo maasha Allah tabaarak Allah wax walba oo jeceshay in soo qaybso insha Allah sida saxtan uga hadlayna waa kaasa ساسان الله هاي مع السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.